jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال ميل كاستو ادونيدا ka joogtaan halkani waa Universal TV stuudiyahan kuleenahay magaalada Hargeysa iyo waliba barnaamijkeena falanqaynta toddobaadka caawa waxaynu ku eegi doonaa isla markaana ku lafa guri doonaa mowduuca ku saabsan guurkii hore ee waqtigii hore maxaa keenay inuu raago isla markaana waqti badan u jiro iyo guurka hadda dhalinyaradani maanta inuu ahaado mid muddo gaaban jira oo markiiba la kala tago halka guurkii waalidiinteenu ahaa mid raaga oo muddo badan la wada joogo midho dhala isla markaana ubad lagu karaadsado waxaan rajaynayaa caawa barnaamijku inuu aad xiiso badnaan doono oo dhalinyaro iyo waayeelba u taaban doono martida ku soo dhawaada baan leeyahay barnaamijka ugu horreyn martida caawa waxaa ka mid ah muumin sheekh cumar gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda New Generation isla markaana bara ah ee jaamacadaha kala duwan waxaa kaloo inala jooga alfanaan cabdirjabbaar alkhaliiji oo in badan qurbaha joogay aabba ah isla markaana caawa bal aynu ku eegi doono guurkan aynu ka hadlano sidoo kale abwaan waxaa jooga Ismaaciil Yuusuf Xasan oo aad u wada garanaysaan abwaan Jiheeye sidoo kale waxaa caawa barnaamijkeena marti inoogu ah Amaal Cilmi Ibraahim oo si weyn u soo joogtay guurkii hore muxuu ahaa mataqaana haddana maanta guuleystay caawana kan hadda imikana ka hadli doonta sidoo kale Amaal Maxamed Axmed oo iyadu ku jirta kaalmaha dhexe amaba aan idhaahdo guurkii dambe iyo waliba Muna Faysal oo iyada lafteedu noqonayso uun muxuu ahaa dhalinyarada dambe ka hadli doona guurka guul daraystay sidoo kale dhalinyarada inamada leh ee hablaha leh aqoon-yahanka ee caawa barnaamijkeenan isla aynu ku eegi doono ugu horreyn waxaan siinayaa abwaan Jiheeye Ismaaciil bal waxaad nooga warantaa abwaane guurkii hore siduu ahaa iyo muxuu ahaa mataqaana sidii uu raagi jiray guur macnihiisu haddaynu macnayno ereyga macnihiisu waa sida uu u yaallo waa guur waa ficil amar waa guur oo meel ka guur oo meel kale u guur meelo badan baa laga guurayaa meelo badanna waa loo guurayaa waxaa ka mid a meelaha laga guurayo keli ka guur oo maxay u guur lamaane u guur waxaa laga guurayaa dhalinyaro ka guur oo waayeel u guur xilsaamad ka guur oo xilkasu guur iskaabulo ka guur oo xaasley u guur caruur la'aan ka guur oo caruurley u guur xidid la'aan ka guur oo xididley u guur loo taliye ka guur oo tashado u guur jacayl ka guur jacayl oo maxay u guur kalgacayl u guur jacayl iyo kalgacayl abwaane maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin hees baad tidhaahdaa dookhu waa 5 meelood caashaqa u muuq dheer waa ka jacayl aan lagula wadin la yidhaa moogti oo qof quru ku eegi caashaqa u muuq dheer jacaylkaa ka magac weyno waa kay labada qof isla fahmaan kalgacaylkay malkadu tahay oo waa marka la isguursado kalgacaylku wuxuu yidhi inan yahay jacaylku waa aniga kowdhe iyo adiga labadhe iyo eheladeennii kaasaa la yidhahdaa kalgacayl wuxuu dhex maraa labada qof iyo waalidkood ilaa ugu yaraan 30 xagga inanta ka socda iyo 30 xagga inanka ka socda iyo waxa isku dhalaan iyo waayahay abwan marka waxa tidhi jacayl ka guur kalgacayl u guur jacayl ka guur oo kalgacaylka u guur waa been ka guur oo run u guur waxa ka guuraysaa xaraan baad ka guuraysaa waxaad u guuraysaa xalaal waxa aad ka guuraysaa intaasoo meelood waxaana u guuraysaa intaasoo meelood waxa ka mid ah guurkii haddaba haddii macnihiisii baynu sheegnay marka caadiya waxaynu gudbaynaa guurku siduu ahaa hablaha la guursanayay intee nooc bay u kala baxayeen iyo guurka laftiisu noocyadu kala baxay iyo guurku u kala baxayeen hablahan la guursanayay iyo noocyada u kala baxaan buu guurkuna u kala baxa 12 nooc buu kala baxayay waa geeri keentay guur la yiraahdo guurka geeri keentay laba u kala baxa dumaal iyo xigsiisan buu kala baxaa guur la yiraahdo sahankeen
oo sahan ay inantu qaada ayaa keena laba uu kala baxaayo inantaan nin intay ishaaqsato ayay dabeedna gurigiisa gelaysay dhaqan ahaan ninkaasi ama isagaa guursanaya ama inankiisu u dhisaya ama walaalkiibu u dhisaya inantaa hadduu celiyo guriga ka soo saaro kontonkeedii baa laga doonaya marka inantu gurigun bay iska galaysaa guriga way shaaqsatay naag gelis doontay baa la yidhi godob ma eegto ha waxaa kaloo ka mid a heerin oo ama hablow raxan ha isku raacaan ama keligeed ha tagto inantaasi jaro way ku dhaqaaqday dabeeto markaa meesha ay gasho inantaa waa la guursan jiray heerin ha heerinku waa inantii oo inta ay soo baxday ama ha weynaata ama dhalinyaraba ha noqotay ya ama raxan ay isku raaceen intan hablahani hor fadhiya in leeg baa israacaya dabeetana waxay meel ay ku ogaadeen dee beelka ay ku ogaadeen rag ayay dee u tegayaan dabeeto tusaale ahaan 4 hablood baa reer u galay moogti dabeetana cuntaa loo sameeyey cuntadiioo kulba iyagoo dee soo daalay loo soo dhigay ha dabeeto waa la dhegaysanayaa mid baa tidhi kulula kama naalle midna waxay tidhi naha kafafee kor ka saar midna waxay tidhi naha qaboobee qaboweyn ku rid ma fahanti midna ha ma garata heerinkuna kaasuu ahaa marka intaanad ka bixina abwaan ma jiraan rag iyaga laftirkoodu intay israacaan raadsado heerin iyaga laftirkoodu taasi ma jirinoo mas-uuliyadda waxaa hayey mas-uuliyaddu sidii dee ay diintu sheegtay arrijaalu qawaamiina cala nisaa baa lagu taagnaa waad mahadsantahay amaal cilmi maxay hayda waad dhegeysanaysaa abwaankana saad noo sheegtay maasha allah gurkaagu guulaystay waxaa tahay hooyo waxaa tahay ayey bal nooga waran intaas oo sifo oo guurka lagu safeeyey keebaad ahayd adigu guurkaygu anigu wuxuu ahaa guurka xulashada labada dhalinyarada ah ee istoorashada dhexdooda ah marka guurkii jacaylka ayuu ahaa aniga guurkaygu guurka doorashada rasmiga ah ee labada qof inta iyagu sheekaystaan nolosha sheekadooda iyo jacaylkooda intay ka salgaadhaan kadibna waalidiintood ay taageero ay siiyaan sidaasna qoysku yagleela ayaan anigu ah waaga waqtigaagii amaal aad sheegayso waxaan qiyaasi karaa inuu 80aadkii ahaa muu jirin 90gii adigu ahaa muu jirin telefoon ma jirin wax la iskula xidhiidhaa may jirin maxaa fududayn jiray bal inaad adiga iyo mataqaanaa qofkaad nolosha doonayso inaad la midowdo maxaa fududayn jiray waaye waad mahadsan tahay run ahaantii soomaalidu waxay tidhahdaa laba caanadoon dee isma weydo laba caanadoon isma weydo waqti waliba xeeshiis iyo dee xeeladiis iyo hawl kasta oo dee dadka ku timaada hawshiisa ayay lahayd waqtigii anigu xasaasiga ahaa ee aan soo qaatay ee dhalinyaradii aan saaxiibka ahayn iyo anigaba noloshaydu dee aan bilaabaya ku salaysnayd dee taleefon muu jirin waxaa xidhiirka ugu dheeraynaya ee bulshada dhalinyaradaas xidhiirinaya waxay ahayd fariimaha waraaqa laysu qori jiray waraaqahaas oo xasaasi oo dadkuna aanay waxbarasho toosa tusaale ahaan anigu haddii aan dee waxbarasho helay inanka aan la sheekaysanayaana uu waxbarasho helay dee dadku waxbarashada kamay wada sinayn markaa dhalinyaradu wax dee taabudan oo waraaqdaas waxaan ku ay xasaasi ku tahay oo laga wada midaysay bay haydo waraaqahaas baa laysu diri jiray waan kugu soo noqon doonaa amaal waxaynu soo dhiibaynaa muuna faysal bal nooga waran dhalinyaradan dambe iyo bal shukaansigooda iyo guurkooda iyo bal waxaa guurkooda u diiday inuu guulaysto taabo qaado ee marka ay is aroosaan maalmo kadib loo oranayo dhalinyaradaas way kala tagtay bal noo waran dadka waxaa jira imika dhalinyarada labada qof ee isjecel waxaa jira qof saddexeeya ah oo soo dhex gala berigii hore dadku may lahaan jirin ama lamaanayaasha dee dadkii hore hooyooyinkeen may lahaan jirin dad saddexeeya baan malaynaya amba haddii lahaadaan xataa wuu ku yara marka saddexeeya maxaad ka wadaa saddexeeya waxaan ka wadaa dadka isku diraa jira waxaa jira dad faamiligooda oo kale oo isku diri kara dad asxaabtiisa oo kale isku diri karaa jira marka anigu waxaan leeyahay dadkoo dhani micnaha ma wada xuma dee yaa lasku wada qaadin jacaylkan imikana horta anigu imika siduu u badan yahay dhalinyaradan dambe guurkoogu ma raago imika hooyadani waxay noo sheegtay amaal in guurkeedu raago maasha allah guulaystay ilaa iyo ayay ay gaadhay maxaa kalifay baad isleedahay kan dambe anu waxa kalifay baan isleeyahay wallahi jacayl la'aan iyo ixtiraam la'aan sababtoo ah horta may jacayl waan isku guursanaa laakiinse saas kama wado dadka qaar jacayl way isku guursadaan dadka qaarna xiise isku guursadaan xiisuhu waxa weeyaan wax dhowr cisho ah
waxa dhici karta iminka inankii inuu inantii intuu ka helo ku dhahdo waan ku jecel iyaduna jacayl lagu abuuro deetana ay isguursadaan kadibna waxa dhici karta inaan tiktok tasluulaysa inuu arkaday oo qurux badan oo inantii ka qurux badan inantii wuxuu guursanaya dhexdeedu taakatay oo qurux badan oo deem garasasa u soo carfaysa laba ciyaala markuu dhasho waxa dhici karta inuu inantii ku nacaba doonto de isagoon kharash gelinaynin isagoon jacayl siinaynin isagoon waqti la qaadanaynin asxaabtiisa waqti la qaadanaya ayaa waxa dhici karta in inantii deena kale ka qurux badan baa uu arko saa darteed deetana uga tago foolxumadan waxa leedahay marka hore isaga u sababay de waayo muxuu ku sabab waayay inanka makeup-ka marsan baatay quruxda badan cadarka soo marsatay dhaweeyay inanka u soo raaxaysa duu doontee bari markuu ku guursado ka tago deeni kale saa kugu rabaa ma jiro man anigu aaminsanahay waa xiiso anigu waxaan aaminsanahay jacayl ma jiro sanadkan laakiin si xiiso la isku guursada waa hagaag waayahay alfanaan cabdijabaar alkhaliiji waxaa lagugu tirinayaa inaad soo gaadhay guurkii hore bal hadda guurkaa hore muxuu raandhiis u lahaa oo u raagi jiray kan dambana uu iska yahay mid maalmo jira siday Muna Faysalba sheegtoono jacaylba meesha oolin aaladahan waqtigan shaqeeya xaadirka la joogana may oolin meesha inanta hadda isku tiin waliba waxa laga yaabaa waqtiga kalaaska yar inaan saaragtaa galinka dambeeyada taa hadalkeedba yani waxa ku jiraan gaadmo soo mataqaan ama iyadoo daqiiq doonaysa ama iyadoo rudid doonaysa ama iyadoo xalwad doonaysa wuxuu baan gaadman jirta meesha gaadmada laftigeeda ya aragoodi waa qaliil ba ma xataa aragtidaada aragtaa xataa la hadlaynba adeeg waxba ku kontroolayo daxshood xishmadii baa jirtay ma fahamtay dadku deynta waa ka albaxnimo ma jirin badan alright فهذا مشكلة ماشى طالع وقت كان حاضر كبدلي dadku waa ka badiyay number 1 number 2 waxay noqonaysaa aaladahan imika soo gala casriga in qofkii yaraa dhalinyarada ahaa wiil gabar ku doonama noqdo wax badan oo information badan oo markii hore heli jiray barigi hore anaga waalidku ma noo sheekayn jiray ama guura kaaga sheekayo ama inta yaraa arooska darkaysa xaafadda la isku aroos ma daawanayso arkaysa wax kale ma adarkay laakiin imika waa qeer imika intaas 200 channel buu daawanaya oo aroos ah nooc loo samaynayo kun jacayl baa inantii daawanaysaa muufiyo jacayl la daawanaysaa muufiyo ma jirin ma barigaan muufiga la daawan jiray in qulun buu hayo inta la tago shilimaan saac waa la geli jiray waliba kaasina waa hadii week ama bishii aad mar gasho adeeg imka laakiin muxuu haystaa de internet bay inantii guriga ku haysataa meenka ku haystaa laba kuna muufiyo daawan reedan wada hadlin ma arkaa waxa weeyaan waxaan ka wadaa un dunidii hore maaha wadcigii hore maaha guurkuna guurkii hore maaha waaga amaal maxamed axmed baan siinayaa amaal maxaa keenay in dhallinyaradiina hadda joogta ay isfahmi waayaan miyaydan waqtiga ay socoto haasaabuhu aydaan waqti dheer qaadan oo aad isku fahantaan oo aad meel wax isla dhigtaan haddii aan isku dayo anigu sheekada la wada sheekaysto inankii inantii markay ama ugu yaraan 6 months sanad intaa ay sheekaystaan nolosha marka dibadda la jooga laga sheekaystaa waa fake waa been weyn waa been marka reality ama runtii loo dhaadhacay gurigii la isla tago inankii sidii muldhiq buu iskaga ka dhigo wax walba uu ii cadeeyo halkaas uu guri wax walba waan kuu samaynaya aniguna kama laalaade waxyaabo badan waan u sheegtay gurigii markaan iskugu nimaadno dee wixii ma jiraan waxyaabo badan uu ii sheegay baan jirayn waxyaabo badan oo markaa ka wada hadalay baan jirayn marka halkaas ayuu ka imanayaa burburka iyo isfahan waagu oo wixii uu ii sheegay markaa igula ballamay igu yidhi baaban meeshii oolin markaan idhaa waxa maxaad u samaysayna wuxuu igu odhanayaa dee iska cadi wax weyn maaha ana waan xanaaqaya marka isku dhac baa imanaya isku dhici wuxuu keenayaa in qoyskii aanu sii jirin oo mar walba inantii ay soo duudo gurigii tagtay la soo celiyo akhirtu lagu kala guuro laakiin waqtigan aad ku jirtaan sheekada maxaad xaqiiqada uga hadli weydeen maxaa keenay inidaan aad ku sheekaysataan sheeke iyo mal awaal aan jirin oo aad uga hadli weydeen anigu ma ogi isaga wuxuu hadhowde adiga laftaadu maanad uga sheekaynaya waan uga sheekaynaya oo waxyaabaha qaarkood baanan de maxay ahayd anigu baanan rumaynaynin wisba igu qabsanaya laakiin markaan halkaas kugu nimaadno dee in loo guda dhaadhaco samaha wixii nolol been lagu dhisay baa hadhow nolol been lagu dhisay bay noqonaysaa iyo inta badanna dumarku way dhigdhigaan baan ka wadaa macnihii way dee samraan laakiin ninka aan samrayna isagu dee wixiisa hawshiisa iska wadanaya oo ay namada noqon amaal dhalinyarada kale ee wiilashaabana gudbinaya dhalinyarada muumin sheekh cumar gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda nijir oo dhageysanayay labada doodoodba maxaa muumin kaaga baxay bismillah horta afkaar badan oo dadku ay sheegaan waan ku raacsanahay aniguna waxaan ku dari lahaa kulli abwaankii iyo dhaqanyaqaan badan baa inala joogo fanaankii abwaankii iyo marti badan baa inala joogta waxaan ku dari lahaa uun bal dhibaatadani siday u jirto
in aniguna dhowr qodob aan ka dul istaago tusaale ahaan haddaa soo qaato cilmi baaris yaroo la sameeyey arrimahan guurka laga sameeyey ninkan shelby la idhaahdo cilmi baarisuu sameeyey waa cilmi baaris aan waddankeena ahayn laakiin xaqaa'iq badan markaad eegtid aynu wadaagno qodobka koowaad wuxuu ku sheegay guurkan dambe waxyaabaha ay u raagi waayeen financial problem baa ka mid ah arrimo dhaqaale haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay ma berigii horey dadku ka lacag badnaayeen waa maya oo berigii hore de markaad u fiirsatid iyo imika dhaqaaluhu imikuba dee ka badan yihin oo dadku ay ka jeeb buuran yihiin oo dee ay ka guryeeyo badan yihiin laakiin waxaad moodaa kartidii wax lagu maareyn jiray berigaa hore iyo kartidan imika ay dadka ay ku nool yihiin ayaa aada u kala duwan oo dadkii hore waxay u samri jireen dee noloshooda tusaale iyadoo kooban haddaa soo qaato waxaan garanayaa wiil aan asxaabnahay aabihii wuxuu ka shaqayn jiray shaqooyinkan kuuliga oo kale 11 ciyaal u dhalay waxa weeyaan 11 ciyaal wax buu baray jaamacad buu ka saaray laakiin haddana wax meel u yaalay oo gaar u yaalay ma jirin maalin kasta waa ninkaa wixiisa soo dhacsanaya laakiin hadda nolol la isku ogol yahay oo dadka hore adkaysa u lahaayeen ayay ahayd laakiin waqti xaadirka waxaad moodaa inaan runaantii iyagoo dadkii ay wax helayaan oo cunno iyo cababa ay helayaan haddana in ka badan inay rabaan qodobka kale ee researchkiisa uu ku sheegay ee guurka waxyaabaha burburiya marka hadlayay khilaafka ka mid ah waqtiyan dambe runaantii waxaa aada u soo farabatay yani khilaafaadka ama hadalka iyo gorgortanka dee guurkii hore aan waxaan isleeyahay waa la kala dambeyn jirayo waa la is ixtiraami jirayo laysma hadal baran jirin laakiin imika waxaad moodaa in aad laysku hadal baranayo oo markiiba dee laysku jawaabayo oo maalintii laga yaabo in 7 jeer ama 8 jeer laysku dhaco isaguna waxyaabuhu soo xigtay waxyaabaha kale ee aan ku soo qaato waxaa ka mid a khiyaamada ka mid a inkastood moodid dee khiyaamadu inay nagaga badan tahay wadamada western countries iyo wadamada inay aada noogaga sii badan tahay oo iyagu dee aada inooga dhaqan xun yihiin haddana kolley dee innagana inagama marnaa marka khiyaamadii iyo runaantii dhinaca khiyaamada marka la eego waxaad moodaa in sidee markaa khiyaamada se laisku khiyaamaya yacni khiyaamada waxaan ka wadaa gurkiiyo aan daacad laysku ahayn oo dee lamaanihii weliba rag haba ha u badnaatee aw qofkii yani cid kale gaar ula soconaya iyo waxyaabo kale iyo waxyaabaha oo iska commona marka uuna dee sheeganayn ama aanu guursanayn gabadhaasi ama yani waxyaabahaasna waxay keenayaan niyajab iyo marka wixii runaantii kala fogaansho badan bay keenayaan inkastoo iyagu inagaga sii badan yihiin oo aad ay inoogaga badan yihin lakiin haddana waxyaabo markaad eegtid aynu la wadaagno haddaan soo qaato qodobada kale runaantii commitmentka waxaa laga wadaa yani in intee leegba waxaan dhab ka tahay inuu qofkani guurkan doonayo iyo nolosha xaqiiq ka tahay labada qof exactly marka waqtiyadan dambe waxaad moodaa commitmentkii iyo yani inuu qofku waxan ay ka go'naato guurkiiyo wax weyn la ahaado way iska yartahay xunbaa u muuqda xafladda yaree gabadhuna waxaa laga yaabaa inay xiiseynayso xafladda ninkuna waxaa laga yaabaa xafladda yaree meherkaa yaree suudhka la xidhanayo waxaasu laakiin mas-uuliyaddii iyo qoyskan inuu sii joogo iyo inuu waxan ay la tahay wax weyn ayaad moodaa oo waxaad ka garanaysaa dee in la kala tagaano way fududahay in laysku yimaadaana way fududahay marka commitmentkii inay waxan dhabka ahaatana way ka adagtahay kugu soo noqonaya xagga sare mikrofoonka igu dhiib xagga ugu sareysa marka hore aduu magacaaga sheegaya dumarku waxaa la idigu aaneynaya oo la idigu eedeynaya in marka hore ee ay sheekada ama sheeka wadaagga aad leedihiin aad hablihii uga sheekaynaysaan waxaan jirin oo beena hadhow markay runta tagtana wixii aydaan waxba fulinayn maxaa ka jira horta magacaygu marka hore waa Idris Hussein Baraga horta inta la nugu eedeynayaa weligeedba waa jirtay waxaa la odhan jiray gabadha run been ku soo xirogeli runna ku dhaq been waad ku soo xirogeli soo rag badan baad kala soo dhex baxday waxaan hanti baan haystaa maxay baan leeyahay guryaal baa daaqa xoolaan haystaa waad leedahay markaad laakiin aad runtii aad ku dhaqastiraa mid ilaahay kuu sikhri mooyaane qaar way qaataan sida maamada maanta hooyadee intaa leegay ayada taagan marka waxa la dumar oo dhan been baa lagu soo xirigeliyay way dhacday hooyadii marka ay ku imanaysaa waxay runtii ku timiday mar hadduu ka dhex hantiyey baa rag fara badan uu nolosha la gadaamayay raggii ha u jibin baa lahayd hooyadaasi waxay islahayd ama gabadhaad markaa uu ilaahay kuu sikhray waxay taagnayd mar haddaad ninkan oori u noqotay ood xaas u noqotay ood ubad u hay maanta aad joogto reerkaaga ku adkow sida la sheegay oday 11 carruur dhalo kuuliyaa jira kuuliga barigaas maanta waaba 7,000 baa la qaadan jiray laga yaabaa inuu 25 kaaba ku soo koriyay ubadkooga uu haddana markii dambe ilaahay hadduu doo waddanka u ballaariyayna uu
lacagtu u badatayna jirto markaa gabadhu waxay ka xisaabtami jirtaa arsaaqadu waxay la socotaa waxa dhali karto ayay la socotaa bay lahayd buulla yar baa la wada geliyey way nolosha kor ugu soo qaadisay ninkii may canaananaynin maalin walba nolosha la degdamayo ayay heerkayga adoo dirisoo reer maleed ها والله واي maxaad ku soo laba reer waliba reer quramaha saddex reer baa leh ma saddex dumar oo saddexda dumar baa aanu xaalado ku kala tagnay waay marka joogan imika ma imid ila joogtaa ma jirto imika inay daawanayaan way dhici waay waxa weeyaan noloshayda naburkaas iguma oolin waay guurkaygii koobaad gabadhii wanaagsaneeda qaadanaa ku qaldamay ee aan helay nolosha mid ila garanaysa xataa nacalgii ma weydiin jirin lacag imay weydiin jirin wixii aan siiyay qaadato mooyaan laakiin markan dambe de rag way iska yar degdegaane aan yar degdegay ayaan isir bal yar labaadkii baan ku cimro qaatay oo odaybaa inankiisa ku yidhi reerka hore kaa xumaado inuu suu waaya arkay inankiisu doonay inankaaga waa kasoo guursaday baa layidhi u ducee waxaan ugu duceeyey buu inuu reerkaa hore ka xudumo telefoonka igu dhig ku xigay ayay walaal magacaaga iyo assalaamu calaykum ani Khalid Xuseen baa la dhahdaa dhibaataa jirta horta laba dhibaataa jira mid waxa weeye selectionka ama doorashadii hablaha ayaa waxay ku tiirsantay ama dan ama ma garanaysaa marka hore wiilkii dee dalabaadkii iyo wixii laga doonayay ayaa wax weyna ma ha noqoto dhoof ama dan ha noqoto ama lacag ha noqoto marka baahiyahoodii ayaa badan oo xagga kan hadda laga baahiyihii ma garanaysaa caadiga ahayd markii aad gabadhii aad isukaansanayseen ayaa aad u weyn dee noqoto makeup noqoto oo ay noqoto dalabaadkeedii kale oo marka dee gabadhii hore intay iska soo fool noqotay iska soo bixi jirtay gabadhan iyadii baaba dee investment u baahano hawl adag u baahan in la dhiso in xagga hoose laga soo bado dhisay u baahan marka waxa iska badan dalabaadkoodii iyo baahidoodii marka taasaa keenaysa maadaama baahidoodii dabooli kari weydeen inaad warqadooda siisaan galin horeba kale aad kala dhaqaajisaan miya ma keenayso arrintaas laakiin waxaa keenaysa dee wixii sidii aad ma garanaysaa ay iska tahay wax aad hayso ay kula dhaqmaysa wax xoog ku keentay inay kalarka qabsto wax lama amaal baynu siinaynaa markan amaal cilmi dhalinyarada wiilal iyo gabdho waad dhegaysatay inta badanna waxaa lagu eedeynayaa wiilashu ku eedeynayaan gabdhaha inay mas-uul ka yihiin gabdhuhuna waxay leeyihiin wiilasha mas-uul ku ah idinka guurkiina siduu u guulaystay bal nooga war su-aasha meesha taallaa waxay tahay burburka qoyska labada dhanba waxay leeyihiin inamadaa ka mas-uula iyo hablaha ka mas-uula waayahay adduunya de horta khilaaf ma weydo maadaama anugu aan imaka halkan aan u fadhiyo dadkii waaweynaayee guurkooda guulaystay ee dee nolosha guulaha ka gaadhay ama jacaylka guulaystaba aan idhaahno aan u fadhiyo wuxuu ku guulaystay horta khilaaf wuu jira adduunyo khilaaf lagama waayo mahmaha soomaaliyeed baa waxay tidhaahdaa laba aan bari ka dhaxayn beeryaro kuma wada kulanto laba aan bari ka dhaxayn beeryaro kuma wada kulanto annaga qudhaydii maaha markan aan kuleey waan guulaysana khilaaf wuu ka marnaa hase ahaatee waxa laysku khilaafi jiray danta madhaafaanka abaa laysku khilaafi jiray kadib labada qof iyagoo isku kalsoon noloshoodana eegaya dhismaha qoyskoodana eegaya haddana xalka waa la wada gaari jiray oo waxna nolosha marka imaka nolosha dee waxna waa faakahadaysi waxna waa wax daruuriya anagu waxaanu u taagnayn dadkii waxyaabaha asaasiga ee daruuriga ee barmatiga ah baan dee anagu ka hadli jirnoonu inta badan aan de laysku qabsan jiray markaa labadan qof way is og yihiin anigina kalsoonida horta nolosha tiiru ah laba qof oo isku kalsoon marka ay yihiin in qof waliba hadafka iyo qodobka uu ka duulayo dee waa laisfahmayey taas ayaa qoyskii ka ilaalinaysa markay labadii qof isku kalsoon yihiin isku ujeedana ay dee wada leeyihiin in qoysku guulaysto oo burburkii uu ka tago dhalinyaradan haddii aan usoo noqdo kala tagan faraha badan leh ee keenaya aniga ka fikir ahaan imanaya inamadii habluhuba qayb bay ka yihiin casrigaa qaybka oo inamadaa qaybka waqtigaagii sheeka wadaagga aad la ahayd hadda imika odaygaaga hadda kula joogay ee aad inta badan wada joogteen maxaa ka mid a fariimihiinii iyo waxyaabaha isweydaarsan jirteen ee aydan hadda dhalinyaradan aanay garanayn
dee fariimihii ay lagu wada hadli jiray dee la isweydaarsan jiray Waay. dee anagu message baanaan aqoon Waay. mobile may jirin Waay. waxaan dee lagu wada hadli jiray sidii aan horeba u sheegay waraaqaha halkudhigyada dee marka waqtigii aanu aan kacay Waay. fanka ayaa xasaasi ahaa waa hagaag oo dee fankuna dee tvna lama aqoone idaacadda radio hargeysa iyo radio muqdisho unbaa la daawan jiray marka heesaha had iyo deer jacaylka ahee qoysaska isku soo dhaweynaya Waay. ayaa had iyo jeer dee dhalinyaradu qaadi jirtay Waa hagaag. dee ma been baanu sheegnaa markaad isku timaadaan baad u qaadi jirtay mise warqad baad u qori jirtay dee may qoraal waan xishood inantu dareen xishooda waan muujinaya Waay. waraaqda baa lagu qori jiray waraaqaha Waay. lagu qori jiray Ay. saaxiibadaayoo kaloo kaaga baahatay baad u qorays ayaad u qoraysa Waa hagaag. waxaa kaloo jirta waqtiyadii eedhiyadii 84 85 ilaa 86 ilaa 88kiiba Ha. dhoof baa jiray gadar baa la tegi jiray dhalinyaradu xoog gadar baa loo tegay Waay. khaliijka dee uu hodanka uu ahaa waxaa jirta anigu jibaar baa inoo joogo inaga warramaya aniga lodkaygii Waay. aniga iyo lodkaygii ee ardaydii dugsiyada dhexe soo dhammaynaysay secondariga ku jirtay Waa hagaag. dee anagu waxaa baanu hayn gudbiyayaal jacayl baanu hayn anagu Waay. oo qoraalkaanu ka caawin jirnay hablaha oo laga caawin jiray maxaa qoraalka ka bal mid qoraalka waxaa ka mid a waraaqaha warqadda ma habka warqadda loo qori jiray haddaan siro dul taago Ha. marka warqadda la qorayo horta xulashay ahayd qofka warqadda qoraya Waay. qof heesaha si qurux badan alfabeetikalka dee af soomaaliga si fiican u qoraya qof far qurux badan qof artiska ku qurux badan Waay. qof xogtan qofkan uu u qorayo aan cid kale la wadaagaynin waaye waayahay markaas warqaddii markay tahay fariin dee jacayle aad qorayso waay tusaale ahaan waabu dhoofay inan dhoofay oo kale aban iminka inan iga soo codsato oo kaleon warqad u qoraya waay inantii warqaddii aan u qorayay markaan soo qoro salaan kashkiya laabta ka soo goday maskaxda iyo maankeeda waxaan ku wadnaha iyo waaxyihiisa boga iyo baalihiisa Waa hagaag. waxaan ka udgoon cadarka oo ka udgoon shinnida malabka ka macaan Waay. iyo naftayda halkaan ugu jecelahay waxaan filayaa sacabka idin joojinahaye iyo naftayda halkaan ugu jecelahay Waay. deetana markii ujoodooyinkii la qoro waxaa jira suugaan baa lagu ledhi jiray waay suugaanta heesaa lagu ledhi jiray inankii olready dhoof buu ku maqan yahay waay dee markaas aaroogii markii wadnihii aad sawirto ee aaroogii dee aad saa u dhaafisa indhihii gantaalihii jacaylka sidaa loogu sawiro Waay. waxa dhacaysa Indhihii ooyaya. indhihii Ayadoo ooyaya nafta ha. nabad kusoo Ha. noqmiya. waxaan ku yidhi dee jacayl dhiig heli mayside dee tiinkaa la isticmaali jira tiinka iyo dacarta iyo magaranaysa inta la Waay. isku qaso marka amaalay taasi markaa ma waxay ahayd isku soo dhaweyn Ha. ama dareen jacayl sug waan oo kuu labada qof dhammaynayaa ahayn? sug markaas heesaa lasoo xigan jiray dee heesu way kala taaban ogyihin Waay. hees fanaanada qaaliga hadday daawanayso adduunyada kulle hibe maxamed heesteedii ayaa lagu qori jiray kaftan baa jacayldala murtibaaba kiciise intaad keen adduunyiyo kordhi maalis leedahay cajaayib cajaayib kaxbanahaye moogtahay muuna faysal buu kaxbanahaye moogtahay markaas warqadaas fariintaas boosta ma la dhigay hore ma u gaadhay inankii ma gaadhay ama cajalad ma lagu duubay deg deg buu usoo goosanaya wuuba soo degaya cabdiqani كل أنا يا الله والله يجين لكن هو بسوتشرا marka حاجة hadalka مع ma والله waaya صراحة نبقى نبقى كان قريب سنة waay عرفت أنت كبدلية واي. واحد أنا ساتنو وإني عرفت إن أنت شهر كان وحبي صغير كذا نقبل عرفت ولا عقب ما هي محب بدل عرفتي واي. هل قاس الشيء كتب بالعمسة بو أنا كتب بالعمية وحيابا يراس كسم بلاد واحد شراء أي دمر ده كذا دمر ينو الرجال هاي إنك مسؤولية دي النصارى نيك لفتي سنة ده وحويان ده قبل سوى إنه سجل لفتي وصبر على بدأ قف إلهي بس كده هو أو إنه سكوت على بدأ قف waay waan kuu soo noqonaya magacaaga adoo ku bilaabay dooda waad dhegaysanaysay bal nooga waran adiga بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu maxamed cabdullahi maxamuud horta markii hore guurkii hore wuxuu ahaa guurkii ummadii miirka qabtay ay isguursan jirtay anu waxaan aaminsanay miir qabaal isku guur hadda waxaan anu markii hore aaminsanay guurkii hore aan aaminsanay waxa weeyaan markii hore waxa la isku guursan jiray miir qab oo ummad miir qabtay isguursan jirtay waa guurkii shakhsiyaadku isguursan jiray iyo qofnimada la isku guursan jiray hadda yaa isguursada marka iminka qayb ka mid ah qofka la guursadaa oo waxaa la guursadaa ama quruxdiisaa la guursadaa ama hantidiisaa la guursadaa ama reerkiisaa la guursadaa ama baasaboor ay seetaa ama isagu midistaa la guursadaa marka lama guursado qof dee iminka miirqab damba la isu guursadaa kale ummad dhaqan guur dhaqan buu ahaa kaa hore laakiinse kan wax kaa barxaday iminka oo asbaabo kale la isu guursadaa marka jira maxamed waxaad leedahay jacaylba maba jiray inantii wuxuun bay kugu gelaysaa baad leedahay waxa weeyaan ma jira iminka waxa weeyaan horta asbaabta la isku guursanaya haddii ay lunto waxaa lumaya maxsuulka ka dhalanaya guurka
ninku markuu guursanayo inanta wuxuu eegi jiray waalidkeedu eegi jiray qoyskeedu eegi jiray qabiilkii ka soo jeedu eegi jiray iyada qofnimadeedu eegi jiray intaasoo dhan markuu qanco ayuu guursan jiray iyada laftigeeduna dee ninka way iska eegi jirtay kuwa hore iyagoo labaduba dee akhlaaqdii iyo diintii iyo dhan walba ka dhisan bay isguursanayeen dabadeedna halkii inantuna hooyadeedun bay dhaqanka kaga dayanaysay inankuna sidoo kale un waxbaba may xumaanaya ama jacayl ay isku guursadaan ama si kaleba ha la isu siiyo qadar alla mooye dee way hirgelaysuun waxoodu laakiin iminka ma shaqaynayso tiyo dee inantii hooyadeedna kuma dayanayso dee wadiga arkay oo telecommunicationkan iyo waxyaabahan miidiyahan iyo waxanba dhalinyaradii mashquuliye rag iyo dumarba marka xaggii bayskii dee waalidkiina kamama dhisnaba labadoodiba marka buuq xaggaasa buuqa keenaysaa markaas saasay u kala duwan yihiin baan odhan lahaa sheekada habeen dhawid baan social media soo dhigo waxaa ciwaankeedu ahaa waar geelayo inantaba iskugu kay dara geelayo inantaba ha la iskugu kay daro markaa sheekadaas waxay ahayd guurkii miyigay ka sheekaynaysay waxaa dhacday reerbaa dee dhowr hablood bay ka koobnaayeen markaa inan baa jirtay yar weynaato hablihii kale dhaafeen inantaasi markaa maadaama yar weynaatay dabeecado badanna isku darsatay oo foolxumana waa lagu yar xamanayey dee da-deediina way weynaatay hablihii kalaa dhaafay deedna markaa inan ka mid a hablaha ay walaalayiina ka yar ayaa nin la sheekaysanaysay way ballameen waxay ku ballameen inay dee uu aroosto oo uu la tago waayo layskuma sheegi jirin inta u baxdun baa la odhan jiray hiblaayo waa la kaxaysta oo reerkaasay naga soo doonay markaa markay arrinkii markuu dhammaaday ee ballantii joogto ayaa inantii ku tiri walaasheed bay u sheegtay ka weyneeday tiri dee hawshaasaan u baxayaa inantii waxay ku tiri walaalo arrin baan kaa codsanaya waxaan kaa codsanayaa inaad arrinkaa aniga igu beddesho maadaamuun anigu waxa weeyaan dee aad iga yar tahay igana qurux badan tahay anaan kaa weynahay dee guurna aan waayey inaad halkaa aniga igu beddesho oo waxa weeyaan waxaa la waxaas tiraahdeen oo dhan ii sheegtid dharkayga xidhatid aad tagto goobtideedna aduu dood dheer inantii way ka aqbashay okay ballantii baa gaadhay inantii way baxday waa goor habeena halkii bay tagtay inanka xataa waa usii sheegtay waa ninka gaabanee noocaasa goobtii baa laysku tegey waa la israacay deedna markiisaa la isku salaamay waa la jaqaafiyey waxaa la socdoba waagii baa beriyey waagu markuu beriyey baa laysku yar fiirsado inantiiba ma hasho dabadeedna ninkii wuu shakiyey markuu shakiyey deedna ninkii hoos la yar hadlay wuxuu war inantii maxaynu samaynaa deedna wuxuu yidhi war sidii wax kaa jiyaynu iska dhigaynaaye inanta neersug baanu odhanaynaaye waynu tashanna gooni bay u baxeen way tashadeen waxay ku tashadeen inay yaacaan oo inanta bartaa kaga baxsadaan inantii bay ka cararayaan inantii bay ka cararayaan markaa ma foolxumadii ku diiday dee inantiiba ma haba may totalisba oo dee inantii waxa weeyaan mu yaqaanayba maba ahaba dabadeedna waxay isku raaceen inay yaacaan inantu markiiba way fahamtay deedna labadii nin way yaaceen inantiina way ka daba carartay deedna waayo dee meel ay joogto meel ay ka noqotona ma joogto waxa lays eriyadaba goor la daalay baa tuulo la galay tuuladii dabadeedna labadii ninoo xiiqsan baa dee meel tuuladii maqaaxidii ku dhacay war maxaa idinku dhacay waxay halkii dabeedna ku nastaanba inantiiyo qaylaysaa goor dambe iyaduna oo dee raadkii soo bidhaansanaysay soo gashay waa ragga i qabto maxaa dhacay halkiibaa dabeedna arrinkii baa la galay dabeedna inantii waxay tidhi nimanka way la soo baxsadeen guur baanu isku ogeyn dee waagu markuu beriyey baa cidlo laygaga yaacay sheekadaan dhammaystiro marka cidlo laygaga yaacay bay tidhi ayaa dabadeedna dee waxa weeyaan arrinkaasaa jira inamadii baa la waraystay dee ininka wuxuu yidhi gabadhani gabadhii anigu aan la ballameba ma aha markuu waagu beriyey bay tu kale igu noqotay dabeedna waxaa lagu yidhi dee waa dhaqan inantaasi reerkii ku noqon mayso ama kontonkeedii dhig ama guurso kontonkeedii baan bixinayaa buu yidhi kontonkeedii baa dabeedna hali kontonkii geel baa loo soo tubay dabeedna raggii waxay ku tashadeen inantii inaan la celine waxay yidhaaheen dadkii intay iskugu yeedheen war yaa inantaa kontonkaa halaad iyo inanta baan ugu ducaynaa qaadanaya nin isna la mid oo waxoogaa guur ku yar salaaxi waayey oo iska duubgoon ahaa ee yidhi waar geelaya inantaba isugu kay dara dabeedna halkii baa loogu duceeyey waa mahadsantahay cabdijibaal alkhaliij labada dhinacba dhallinyarada aad baad u dhegaysanaysay oo iyaguna waxay dhaliilayaan kuwii hore oo waxay leeyihiin xagga hablihii waxay ka
cabanayaan kharash la-aan bay ka cabanayaan oo raggii ku diidayaan inamadina waxay leeyihiin jacayl baanu doonayo annagoo bilaa kharash oo bilaa aan waxba haysan hanala joogaan bal hadda ka warran horta waxaan ka daba tegaya heesta iyo xaljida intaan idhaahdee anagoo sacuudi arabiya joogna ayaa heestaasi soo baxday berigaa cajalada yar baa laysu diri jiro waa garansar kodho yaraa cajalada lahaa waa dhegeysan ma guryaha waxaa lagu seexan jiray 20 qof odayaal meedhan oo odayaashii hore aad garanayso dhalinyarana anoo markaa ciyaal suula ana la geeyay meesha inaan wax ku barano heestaasaa lagu soo baxday odayaasha markaa dhalinyaro aniga nin kale meesha joogna heestii baa la saaray meesha waxay dhahaan adeer noo sheeg inanta maxay leedahay saan ku yidhi waxay ti leedahay keligee sariirtaan kududaaye moogta kurba male caruurtu wallaahi waa runteeda buu yidhi subaxdii tigidhada waa goosta wallahi ma kuu sheegin tobanbaa tigidhada goosto soo duulay yani qiime lahayno way tixgelin jireen hadallada iyo suugaantii aad bay u tixgelin jireen dadka ma fahmi yan kuu sheegay tobanbaa wallahi soo baxay tigidhada goostay wallahi inantaas urun bay sheegto islaamihii iyo miyiga marka islaamuhu badnaan burca iyo miyiga ay heleen daba tan kale aan kuu sheegay tan waqtigan xaadirka guurkii hore waan idin sheego dadku way yaraayeen social media han badan meel ahayn familigu dee waxaa jiray wax family la yidhaha familiyadu way isku xidhnaayeen hadda eeg familiyada keenaya inay isku xidhmaan oo qofku qaldama waa la toosinay haddii inantu qaldamto dee ehelkii baa joogo toosinay aabaheed walaalkeed duudkii dumaanshigeed hadduu doon ma garanaysa dadkii imka xidhiirkii baa go-ay bahalkanaa ku wada dhex jira ummadda soodamaad garan qof that's why aan wixii u hagaagayn badday yani wixii ilaahay isku calfay isku khayro waa meeshoodii laakiin social media hanay arkayso inanta waxay doonaysaa noloshii hore maaha dadkii hore maaha waxa weeyaan qofkii hore guri yar biskiga jiray halkaas xabadda roorida ee laxda lagu wada cuni jiray iminka waxaa soo baxay fakaysi inanta waxaa arkaysaa khayrkeedu meelaha la ogdiyo marba meel la geeyo bangaraysaa nafaxaadu hawlo ku socdaan talaba dadkii dee dhallinyaradii iminka shaqooyin bay barteen lacag bay leeyihin iyaga laftoodu way shaqaystaan maaha tii hore guriga joogtay la masruufayay maaha inankuna the same thing marka kaash yar baa soo gelaya meeshii kibirkiina waa imanaya heesahaas iyo dareenkaas iyo sheekooyinkaas iyo waxyaalaha isku soo dhaweynaya iyo bal waad arkaysay idinku bal iiga warramatiina wallahi horta anu guur waan soo maray ciyaal baana leeyahay ciyaalkayga aabahoodna waan kala tagnay waxaana dhalinyarada imika guurka ku guuldaraysatay horta anigu taleefanaa jiro waarno tiknolojiyad baa jirtay dee markaan anigu sheekaysanayay hadday ahayd moogtahay markaas dee facebook yaa jiray koolal caadiyaa jiray somteesha aada loo isticmaali jiray waan ka sheekaysan jirnay dee xabib waan ku jecelayo waan kuu xiisa iyo heesa caadiya iyo waxaas ayaa la isku qaadi jiray waxaan ii ogolow fariimaha labada inaan ka yara daba tago inamadaas waxay yidhaahdeen habluhu dhaqaalahoogaa batay oo gabadhii waxay doonaysaa in hotel la geeyo oo makeup loo soo sameeyo shopping loo soo sameeyo walaalow haddii gabadhu isqurxin weydo oo is-udgoonayn weydo oo adiga isku kaa qurxin weydo soo hadhu tolo gabadh kale qurux badan ma raadsanaysid qasab waad raadsanaysaa gabadh jikada ka soo baxdo oo dirac uraya xidhan oo holofolofa ma soo agseexansatay qarash in la geliyo gabadh u baahan tahay in makeup la geliyo markii meel aadayso khayrkeeda ka qurux badnaata rabtaa gabadhaadii oo intii aroos tagtay bal bilaa makeup ku tagtay adigu caqligaaga ka fikiro iyo gabadh qurux badan oo agteeda tagtay videos kala soo duubto gabadhaada waad nacaysaa taasaan doonaya baad odhanaysaa anu marka taa waxaa qarash baa galo makeup baa galay qarash baa galay marka haddaad qarashkii ka ordaysaan gurigii hooyada ayarska jooga gabadha guursanina midda kale waxaan doonayaa inaan ka daba tago dhalinyarada iminka sanadkan isguursataa dad aad u waaweyn maaha dadka waaweyn ee sanadkan isguursada magaranaysa aykan iminka taaganahay mudakarka ah ee isguursadaa waa dadka guurkooda raago qasab maaha dadka iminka jooga in guurkooda wada burburo ma fahantay dhalinyarada iminka iswada guursataa waxa weeyaan 15 jir 16 jir 17 jir ina yaro canjarada guriga hooyadii ka cunaya ayaa ina yar gurigooda ka soo kaxaysanaya hadda tolo waxa isku leenaynaa biyaha xasuuligii ku geen weydiyo mad geesad kacma kugu yaale waa ina yar gibirka laga badiyay barwaaqaynu dhiibaynaayo goorahan bayna dhegaysanaysay xaalado badan oo arrimahanana la soo kulantay balnawar waad salaamantiin dhammaantiin baan salaamaya marti sharafka iyo universal t v iyo labada wariyaba imaka maanta caawo kale barwaaqaaba la aroosay waa lay guursaday laba habeen kadib ninkaygii wuxuu u baxayaa shukaasi laba habeen kadib hadda imka aniga aroos cusba laba habeen kadib waa dhalinyarteeda hadda jirta laba habeen kadib wuxuu isku diyaarinayaa inuu shukaansi galo anoo isaga aniga ila sheekaysanayo ayuu gabdho badan la sheekaysanaya sidoo kale habliin oo saasoo kale dee sidee bay noloshii ku hagaagaysaa marka khaayinnimaaba horta kowga ahba
sidee bay noloshii ku dhismaysaa markuu wiilkiina i khiyaamo intaasoo gabdhood la sheekeysanayo inantiina xataa isagoo i qaba uu khiyaannimo igu wado marka anu waxaan odhan lahaa guurka hadda wuxuu u guuldareysanayaa waa khiyaamada way barwaaqo kala joogtay iyaduna bal noo waran barwaaqo adigu aad baan idin salaamay horta marti sharafta qaaliga ah iyo daadiyaha barnaamijka run ahaantii anigu guur hore waan soo maray haddana waa lay qabaa alxamdulilah guurkii hore aabahay isagaa isiiyey ninka marka hadduu isiiyey ismaanu fahmayn maxaa burburiyey guurkaygii hore waxaa burburiyey isfahan waa yacni waxaan isku noqonnay intaasoo bilood baan wada joognaa waxaan isku noqonnay dad isku cusub iminkaa la taagan yahay guurka imika anu waan taageersanahay guurka kan dambe anaa xushay laakiin kii hore aabahay bay xulay marka aabaha ku xulay miyaa burburay muxuu ku burburay wuxuu ku burburay ismaanu fahmayn ismaanu garanayn maalintaasaa isku kaya horreysay marka waxaan leeyahay anu guurka imika ayaan xoog u taageersanahay burburkana waxa keenaya ragga waa hagaag waa kaa tegaya waxa inta badan ay raacaan oraahda ah runna waa lagu beenna waa lagu soo xirigelay runna waa lagu dhaqaa adigaas maxaa ka jira bal nooga war laba curiyoo la isku daray ayaa isla falgalo oo isla faxa oo ma garanaysa maxaad malaynaysaa laba nololood oo la isku daray nololahaasi way isla faxayaan nololaha haddaba waxaa lagu gaadhayaa waxaa la yidhaahda samir oo nin baa lagu yidhi haween ka waran in yar daaya soo gara haween ka waran baa la yidhi wuxuu yidhi haween u samir ama ka samir dabeedna waxaa la yidhi maad garan suu yidhi ka labada fiidcaw la murmaa iga yaqaanay kaa weydiiyey buu yidhi inan baa lagu yidhi bal ninkaad doonayso sheeg waqti waxay tihi ninkaan doonayaa waa inuu noqdaa nin hanti la-aan dhargi karaa hub la-aanna dagaalami karaa hoy la-aanna gami karaa waa nin hanti la-aan dhargi kara oo weji leh hub la-aanna dagaalami kara oo aftahana hoy la-aanna gami kara oo aan godob lahayn waxa weeyaan haweenka iyo geelaba waa la hidda raacaa baa la odhan jiray magal oo markuu qofku hiddo ku socdo wax badan baa xakamaynaya waxa weeyaan in dhaweyd waxaa soo baxday waxaan beri dhaweyd sadarka maasaa ku daray oo ahayd jacayl dheela jeedaal dhug daran jamasho dhooftoona ma garanaysa waa jacayl dheela jeedaal dhug daran jamasho dhooftoona waa xagga dumarkaanay u sii yar badantay inay dumarku dhoofuun doonayaan aanay jacayl badan ka lahayn way ku sii badantay baan kuli labada dhanba way ka jirtaa waxaa dhacday nin baa raggiina waxay qarinayaan minyaray halkan dambe ku wada qarinayaan minyaro ayaa halkan ku wada qarinayaan nin baa inaad diyaarad raacay gabadh baa meel ku haystaa oo laba carruur ay u leedahay dabadeedna diyaaraddii baa la yidhi ijiinkii koowaad baa xumaaday ijiinkii labaad baa xumaado mid quraynu ku soconnaa intuu saro kacay buu yidhi waar wixii noolaado halkaa iyo halkaa gabadh iyo laba carruur ay jooga ee iminka waa laga waxaa dabeedna markuu warramay baa la yidhi ijiinkii buu hagaagay kii dambena uu hagaagay saddexdii ijiin weyna ooma markaan warranna bay hagaagayaan marka waxaan ku soo ururinayaa oraahdan bal nooga warran iyada ay inta badan ku doodaan wiilashu ah beenna waa lagu soo xirogeliya runna waa lagu dhaqaa maxaa ka jira iyada horti dad islaama baynu mar haddaad qof islaamatayna in uu kaa lumlumo maaha dhaqankeennii ma waxa saxan mise waxa qaldan waxii qaldanee ku jira markii hore guurka idin sharaxaya waxaan ku yidhi waa been ka guuro runu guursoma ya ninku ma waxa uu isku macmacaanaynayo ya waxa weeyaan beentu waxay lagaga baxaa ummadda nebi maxamed nebi maxamedna wuxuu yidhi ummaddaydu beenta ma sheegto markaa horta dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan kula talinayaa maadaama oo abwaanaa tahay aad leedahay oraahdaasina waa wax qaldan oo waa in laga guuraa maxaad dhallinyarada ugu wacyigelin weydeen oraahdaasi marka hore marin habaabisay inay mid kale oo ka duwan oo kasoo horjeedaad keentaan run baa reer lagu dhaqaabaa abwaaniintaa yidhi moogti yaa ma garatay waxaa jiray haddaba isaguna xeerar qoysku leeyoo dhaqan inoo ahaa ayaa jiray kuwii baa iyana meesha ka baxayoo
dabeeto waxaa jiray wax inanka xakameynayey inanku hadduu gabadhan iyo reerkan uu soo guursaday siraaq fur oo iska baabii walaalkii adeerkii dee gabadha tolkaa qabay iminkana isagaa keligii qaba waxay ahayd awal hore gabadhii hore gabadh tol qabayoo aanu ninkani go-aan deg dega ka gaadhayn nin bay yar wareerisay moogti waarniyo gabadhii baa igu mashquushay raggii hore ma garanaysa dabeedna waa waqtigii dhow wuxuu waa riyeeyo digaag u dhaq buu yidhi moogti riyihii iyo digaaggii uu dhaqo way ku mashquusho dee inuu u fikiro qofkii soo maha ya amaale aan kula kaftamo xinaad marsantay maxaa ku sawiray gacantaada xinahayga loof baa ku sawiray markaa weli loofka iyo jacaylka ku haya damee noloshoo dhan baa jacayla caruurtayda waan jecelahay qoyskayga quruxda badan waan jecelahay odagayga waan jecelahay inaan ayeeyo gashaantiyo noqdo waan jecelahay marka dee noloshoo dhan baa loofkaasa haddii aan jacayl jirin adduunyaduba ma joogteen baan qaadaya anugu ilaa ilaankaasaan jacaylka taageera anugu waa hagaag odayguna kula wadaa waayo ha jacaylku noloshu waa farxad qosolka iyo jacaylka labadaba waa laygu yimaada aniga iminka waxaad noo sheegtay inuu isagu uu ku keenay stuudiyaha maxaad usoo sheegtay waxaan usoo sheegay inaan dood ka qayb gelayo oo aan ahay guulaystayaasha jacaylka oo aan dhalinyarada dambe si aan rool moodhor ugu noqdo aan dhalinyarada dambe dee adduunyadoo dhan layga daawanayo dee aan ka run sheegaya dee noloshaydii iyo iminka amaalay waqtigii aad yaryaraydeen ma aad iskaba isku nolosha ku cusbeedeen aad isguursateen amaba noloshiinii hore sheeko wadaagga aad haydeen hadda oo iminka aad wada joogtaan 30 sano ka soo wareegay ma xasuusataan waxyaabaha aad isku diri jirteen iyo maaweeli wixii oo dhan ma xasuusataan waxyaabihii la isku diri jiray dee ruwaayadaha ma sir tiraadaan marka aad caawinaysaan dee ruwaayadaha jiray la geli jiray tiyaatarka Hargeysa oo kale ruwaayad baa jirtay la geli jiray ruwaayad aan aad u qiiroonayay baa jirtay berigii lixii qadra daahirba iyo cabdiqaadir jubba akhtarka ahaa dee markaas waqti xasaasiya buu ahaa igu ahaa ruwaayadda maxaa la odhan jiray qof ilaahay u keeshay nasiibkiisa ma waayo ayay ahayd dee markaas dee xaalad bay ahayd markaa qiirada markaa ku haysay dee qiirada waxay ahayd tusaale ahaan gabadh qadra daahiroo dee ninka jeclaydoo waali ku matelaysay ayaan lahaa dee bal inantaa jacaylku hayee xaaladda ku timi eega oo kale markaa sawirkiis barbardhig talow adiguna adiga dee sidanaad ilaahu sidan ay ka dhigin ilaahu iyadana u sahal waxaad xasuusin kartaa si ku jira cudurka kaa gala fartaha way qaadaysay heestii kalena cabdiqaadir jubbana muxuu qaadayay hobayo 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 heesti maxay ahayd imanka ilaa maskaxdayda imanka waxbarasho iyo h baa ku duubane iyo caanaya nabad iyo calaf isku keensimo iyo caanaya nabad insha allah intaasaan dee kasii garanaya marka anigu xagga dhalinyaradaynu u gudbaynaa hablahan siinayna hablihii waxaa laleeyahay raggii mataqaanaa inay lacag weydiiyaan oo ay lacagtii iyo adduunu ka fikiraan jacayl ba aanay garanayn oo aanay jacayl barreerka ku dhisan maxaa ka jira maya horta taaban kasoo magacaaga ku bilaabay mikrofoonka marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Muna Cabdikariim Khaliif waxaan rajaynayaa idinku inaad fiican tihiin familigiina inuu fiican yahay horta guurka hore iyo kan guurka hore anu tusaale waxaan ka haystaa aabbahay hooyaday taa aabbihii hooyo waa la isku diiday bilowgii waa isla soo baxsadeen jacayl dartii magaalada jigjiga anu jigjigan ka soo jeedaa magaalada jigjigay soo galeen intayna ismehersan isguursan haddana iyagoo isla soo baxsaday oo qalad ahayd bay haddana wadadii saxda ay mareen oo waalidkood la xidhiidheen oo dhaheen la'aantiin waxba ma qaban karno waan isjecel lahay haddana isku kay diidan isku kay guuriye sidayba isku heleen kaas jacayl baan oran karaa sawa okay guurka hore midmarkan hooyadeen oo kale hooyaday oo kale midmarka ilaahay nasiibka jacaylka ku siiyay ma ahane gabdhihii hore min hawaysan jirin wiil ay iyadu dooratay inay guursato waxay hawaysan jirtay ama ay sugi jirtay xataa heer waxay taagnaayeen iyada oon la ogeyn waa beed ku mehrinay sax iyada oon ogeyn aabeed ku mehrinay heerkaasi taagnay haddana waa rabitaan aabbaha baa kuula imanay oo kooranaya aabbo ha iga sugin nin aan kugu qasbo adiga keenso mid aad ku qaracsanta kaliya inuu diin leeyahay akhlaaq leeyahay ku dhaqan karo aabbaha markuu saa ku leeyahay iyo aabbihii iyadoon ogeyn ku mehrinay see maaha markaas ku sheeg see maaha ani seema ma arko furitaankan inuu bato furitaankan guurka dambe inuu batana waxaan leeyahay ugu badnaan waa diin la-aanta bismillah anigu guurkii guur waan soo maray hore
waan soo guursanay waan yaraa markaan guursaday alxamdulilah laakiin waan kala tagnay ma oran karo jacayl aan baan kala tagnay waxa laakiin yari ahaan baan kala tagnay imika imika laakiin waan isguursanay maasha allah alxamdulilah wada joognaa laakiin guurkii hore guurkan imika kan horta guurka iyo maxaa la dhahdaa markuu jacayl dee meesha uu yaallo dadku ma kala tegayaan laakiin dhibaatada jirtaa waxa weeyaan imika waxa jira ugu badan dadku kala tegayaan waa isticmaalka mobilka guurkii hore dadka mobil ma isticmaalin tiktok lama isticmaalin whatsapp lama isticmaalin instagram ma jirin imika laakiin ninkan wuxuu mashquulsan telefoonka gabadhina mobilka ku mashquulsantay dadka qof walba isagoo daalan ay isku imanayaan hodhow wuxuu oranayaa waxaan ii soo dhib waxaan ii keen gabadhu waa daalan tahayba waxay ku daashay waxaan gidiga maanta waxba soo isticmaalayaa iyadu waxba isticmaalaysaa marka mushkiladda ugu weyn waxa keenaya waa tiktoka iyo instagramka iyo waxaan haddaanay waxaan jirin ma isticmaashaan mise waad iska dayseen anigu waa man iska tuuray mobilkii laakiin marka isagu dhigi waayey baan soo iibsaday mobil isagaa dhigi waayey markuu mobilkii dhigi waayey dhamaysto markuu mobilkii isagu dhigi waayey anigu waxaan silbar reerkaaga marka kii hore horta waaban yaraa isaga iskaba daaba kan imakan laakiin sheegaya anigu kan imaka horta marka hore waxaa la oranayaa anoo aan ku jecelaadna waa jeceshahay taa waa la isku yimid imika anu odayga waan jecel alxamdulilah laakiin inuu isagu jecel ma cadeyn karo oo ma oran karo uu jecel yahay ma imika odaygaaga hadda wada joogtaan ma cadeyn kartid ku jecel ma cadeyn karo sababtuna cadeyn karo laayo waxa weeyaan dee waa caadi waa hadli kartaa haye sababtaan cadeyn karo laayo waxa weeyaan qofkii mobil buu isticmaalayaa waxaan buu wadanayaa anigu anigan iska daayo mobilkii inuu mobilkii iska daayo inuu waxaan doonayo ya mobilka ha shakigu waan mobilkan ka qababa waxaan uga shakisanahay qofku markuu xataa saa mobilku farstaan meel baa xanuuntaba tiktok ba soo galsa adoo habis ka dhigo qurux badan bay naag waxaan ku yiri si kale soo istaagaysaa tan warkii adigu ku ilaahay waa daalo seexanayaaba marka wax mushkiladda weyn waqtiga aad inoogu yar tan social mediahana anu ma aaminsana telefoon wala wada isticmaali karaa laakiin waqti go'an guriga adiga ninkaaga iyo adiga caruurtaada waqti go'an aad khadka isticmaashan yeesha maxaa xala haddii uu isagu mobilkii dhigi waayey oo iyadii dhigtay isagii hadduu dhigi waayey maxaa xala maya waa ma saxananaya maya ma bilaabayo lama ficiltamay ficiltanka waa wax dhibka keenaya lama ficiltamay aniga marka waxaad leedahay inaad u dulqaadato waan u dulqaadanaya waan u naxariisan ilaahay baa la kaashanaya marka waa hagaag abwaan u dhiib mikrofoonka waa yahay haye adigoo daba socda waqtiga soo kooba soo dhamaysta anigoo daba socda kelmadii abwaanjeeye waa hagaag abwaanjeeye sharciyadii guurku sheegay waxa ka mid ah in gabadha laga bixiyo boqol geele iyo waxyaabo noocaas faraska iyo qoriga iyo wixii taasba qarash bay ahayd way hooyaday boqol geela laga bixiyay faras iyo qori maanta ninka haddaan ku dhahdo boqol geele iga bixi wuxuu odhanayaa boqol geele kama bixin karo 10 geela kugu filan bay ku odhanayaa marka maadaama qarash tahay yaan la eegin hoolkan ku dhisanaya arooska maykaabkan soo marsanayo iyo waliba qarashka ay gelaya way hooyadayba qarash baa soo galay hooyaday aabaheed kumuu soo tabcin uu soo koriyo kaliya laakiin aniga aabahay ugu soo tabcay waxbay soo baray 20 yar ayuu soo korinayay wax soo barayay marka maanta haddaan nin xayraana u keeno dee waa qalad marka ma waxaad ii kaadi magacaaga najma hala najmaay marka ma waxaad leedahay in aan aabahay u keeno nin aan waxba haysan aniga igu tahay baad leedahay markaa ceeb marka waxaad doonaysaa nin hanti badan haysta may nin hanti badan haysta jacayl ma jira miya may jacaylka waa tala doonayaba waay waad mahadsan tahay xagga mala soo gudbeen waay haye bilow horta waxa weeyaan bismillahi rahmaani rahiim mar labaad baan kusoo noqday horta anuu furiinku maan dul istaagaya waay ma hadduu istaagina arrinta hadda aynu ka hadalna kaada ee habluhu ka cabanayaan waxaan ka hadlayaa wata furiinka keenaysa arrintu waay soo daad wax weyn horta fikirka hore aaminsanaan wuxuu ahaa marka horeba asbaabta la isku dooranayo ayaa waxay ka mid tahay qayb ka mid ah qofkii maxayanta quruxdeeda jeclaata dadnimadeeda aanad jeclaan wanaageeda aanad jeclaan daacadnimadeeda aanad jeclaan waxaad jeclaatay quruxdii beri waa la waayaya dee markaa waxaa imanaya furiinka baa imanaya gacmahaad waan idin wada siinayaa idris baan ku yar celinaya intaan adiga ku siin idris habluhu waxay leeyihiin haddaanu inankiiba marka horeba lacag lahayn oo aanu lacag iyo mataqaanaa hanti uu aniga igu kasbada lahayn muxuu marka hore iga soo doonaya marka hore haddaanan lacag lahayn jacayl baan siiyey wadnaan siiyey heesaan u qoray araar baan u qoray reer baan ka dhigay go-aygii bay noqotay rag xalaqa hadday raaceen uu been ku soo xerogeliyey haliyey inay iga dhigaan maxaa u diiday waayahay professor maxaa idiin diiday inaad raggii haliyey ka dhigtaan aba marka dambena amaa la soo gudbin tahay magacaaga walaa ii sheeg idris
idiriso maxaa haliyey laga dhigay idiriso meedhan baa ku jiro been dumarkii kusoo xelagelinaya laakiin haliyey waxaa looga dhigaynin dumarkii iyagu haddiina wanaajinayn walaal haliyey may noqonayaan de dumarku waa ciyaal cag weyn haddaan iyaga la wanaajin wax allaale waxay wanaajinayaan ma jirto ma fahantiin wanaagga iyo dhismahuna wuxuu ka dhismaa inta badan waa ninkaagu hadduu wanaagsan yahay gabadhuna way wanaagsan tahay sababta oo ah ninku markuu wanaagsan yahay gabadhu way wanaagsanaan raalliyo noqonaysaa waayo ninkeeda waxay ka aragtay weeyaan inta badan dumarku waxa guriga ka dumiya waa masayrkuna wuxuu imaadaa markuu ninku godol la noqdo shalmadraac markuu noqdo markuu gabadh kale adigoo guriga u joogo u xalaalo u raaliyayo wax kasta u qabanaya oo markuu imaado soo dhaweynayo ubadkii ka aamusiinayo isagii haliyey aad u haysato markuu gabadh kale kugu dul keeno waad masayraysaa in uu la sheekaysto miyaa la kala shakiyayaa uun may lama kala shakiyayo mise waxbaad ogtay xaqiiqooyina sidee ku ogaan kartaa gabadhu ninka inuu gabadh la sheekaysto horta anigu dadka qulubtooda dhan ma wada daacan karo laakiin anu shakhsi ahaantaydan ka hadlaya micnihii wixii kugu dhacay ninkayga noloshiisa markay wax ku soo kordho waan garanayaa shalay xalay suu ahaa ma ahaanaysaaka miyuu riyoonayaa markuu ma riyoonayo tiknolojiyad baan haysanaa taleefanaynu sidanaa soo maaha anigu taleefankayga fasax buu yahay whatsappkaba maaha anigu ninkayga markaan jecelahay xataa waxaa shimbirteera duusha naag bila noqonaysaa waan waalanayaaba masayr darti annagoo ma gaba sii xag jiraaba dumarka waan masayr badane fahanti taleefankiisaan baarayaa xataa isagoo hurdaan finkarkiisa ku furayaa faraha وايه وهجاك وهجاك isagu sama laha taleefanka de waa xaaskiisiyo maxaa qabanaysaa idinku telefoon horta ma yira daayo walaal aniga eeg horta yira dhigeyso fadlan yira dhigeyso hay muna ani rudayno anigu markuu ninkayga yahay waxba ma kala lihin isagu anu imatali karaa aniguna isaga matali karaa soo maaha taleefankayga iska daayay noloshayda dhammaan siiyey taleefankiisa muxuu taree waxba soo maaha finkarkiisa ku furay waan baarayaa weliba wixii noloshiisa ku soo kordhina waan arkaya haddii wax aad ka dhibaato to ka soo kordhay aragtid maxaad sameynay waan ku kacayaa de markan ku kaco isagii raganimadiisa de maslaxaadiisa waxa keenaysa hanti badan in la doorto ninkii markuu naag kale ka daba keeno de ma qarax muxuu kala soo doonayaa mu lacag ka keensada de naag kale muxuu ku doortay kan hantida badan li waaba ka ugu hinaasaha badan ee lagu hinaasayay la isleeyay waxbu keenay kan intuu ninku xayraanka ibaaba horta dhegeyso walaalo noloshu waa laba waa hanti ama jacayl meesha hadduu jacayl jiro oo ninkaagu jecel yahay adiguna aad jeceshahay masayrkii shakigu wuu imanayaa laakiin maslaxaad baa meesha taala labada qof ee bini'aadanka hadday isku kalsoonyihiin is jecel yihiin anugu mar kastaan masayro ninkaygu waysa sabi karaa waad mahadsantahay hantida walaalo yara sug hantidan aan ku kala saaro gabadhu markay ninka hanti ku gasho waa inuu ogolaataa naagta labaade أنا مركز نيك هنتو قالوا هنتي لي سكلي أي مقرصة نيك نفسيتي سيمو مقرصة دي. لا واحد قال صار لبي يصدق حي وحد دونها كرسان. أنتوا دونها كرسان وهنتي دي سرها. واي أمالي يقولي. أوكي واي. إن أنا تمت بان ويا على سنة أو كيرة بتجي. إن كارد حد كشرا دونا مجيء يسمى قرني. فنان كقدم بيا. واي. وحساقات هي والد كقدم بيا إن أنتوا صدق هو يد أصابر بارسة كلها دكان تقولي. واي. هو يدي إن نيكن كوكي بريء ما يصابر بارن. inaan ninkan si kale ula dhaqmo iguma soo barbaarin inaan ninkayga caas ku noqdo iguma soo barbaarin aabahayna ka daalig ninkan hooyada waxay ku soo barbaarisay sidii iyada hooyadad ku soo barbaarisay waxay jeceshay in walba inay sideeda kala noqoto hooyo inay soo duuday gurigeeda ku soo noqoto ma ogola in walba waxay hooyada jeceshay inay maxay ahayd role model u noqoto hablaha kale oo gurigeeda ku asturnato waalid kastaana jecel yahay horta inankaa taasaan ugu jawaabayaa oo hooyaday aniga marnaba ma ogola inay waxaan ku uri aan ninkayga ku khaldamay inaan gurigayga soo burburiyo toona mid baa jirta haddaba aan inta badan dadku ka dhawaajinin oo ah xaalad hinaasa leedha ninkan kula joogaa waa hinaasi xoog buu hinaasu yahay anigu horta mid baan ka yaraa cudurdaaranaya markaa hinaasaha raggu uu badan yahay ka dumarka uu ka badan yahay heer dilniinna uu gaadhaa markay gabadhu had iyo jeer kaba soo qaadina inankii gabadhii hadday doonaan wada shaqeeyaan inankani anigoo shaqeeyuu gursaday soo maaha wuxuu igu odhanayaa shaqadii ka tag shaqadiisu kuma filla inuu aniga ikafeeyo waxaan rabaa inaan aniga tayadiyo tiisa isla kaashano waayahaye haddii aanad ogolayn inaan anigu shaqeeyo waan soo fadhiisanayaa anigu wixii qeyrkay qabay ma qabaya waa maya jawaabtu
waayo haddaba aan shaqaystay in nabadgelyo hayga hinaasin dee public baan ka shaqaynay rag baan la shaqaynay xafiis baan fadhiya waa laysoo geliya waan qoslaya waan hadlaya laakiin haddaad kusoo koobto ka waran gurigii markaan anigu soo daalanhan gurigii imaado inaan madax xanuun baa soo qaado maanta ilma xisaab kusoo jiro waan shaqaynayaayo gurigii baan nasiiban gurigayga waa caqabadaha keena in burburka guriga guurka dambe burbur waay marka in yar nuuray walaal marka gurigii markaan imaado inaan dee su'aalo aan kaga jawaabo shaqadaydii mise inaan kusoo raaxaysto gurigayga baan kusoo noqday kuma iman karo gurigaygii inaan dee ka jawaabo maxay ahayd wixii uu soo arkay ugu maanta waad qosasho maanta waad si fiican baad u labisatay maxaa jiray marka maanu jacaylhayn inuu igu kalsoonaado samaha se jacaylku uu qabo ma waay laakiin jacaylku dee marbuu waali noqdaa waay you damage aniga ii keeni dee you damage aniga ii keeni inuu jacaylka noqon mid aniga dee fixi igu ahaado dhaawaca amaal waxna marka sababtaasay igu burburaan guryaha inta badan gudbinaynaa amaaley gabagabaynu ku jirnaa waad aragtay dhalinyaradu inta badan waxay isku eedaynayaan doodana waad la socotay hinaaso iyo mobil iyo adduun kale ma jirin waqtigiinii waxyaalaad ka hinaastaan iminka mobilaad jira iyo casri idinku bal ma hinaasi jirtoona waqtigiini ma jira hinaasaas dee hinaasuu weligiiba wuu jiray baaxaddu doonaha kala lahaadee inan iyo inan wada sheekaysanaya haddii ay dee magaranaysaa uu ama inantu soo ogaato in inanku xidhiidh cid kale la leeyahay iyaduna ay serious ka tahay sheekadu ay dee yacnii dee ay toos dee sheekada ay ka tahay kalsooni buuxda ay ku qabta ay aragto isagoo meelo kale egeegaya way hinaasaysaa afar banayntaas iyo guursigaas ragga loo baneeyey inta badan markuu dumarku ma sii dhintaan waxna ma sii noqdaan markuu ninku toos si cadaana uu gabadha u guursado uu arrinkiisa galka seefta kala baxo waxba ma noqdaan laakiin goorta lasii jabaa lasii dee magaranaysaa lasii holmaa waxa weeyaan lasii burburaa waa fiinta gudcurka ka ooyeysa marka leeyahay gudcurka ayaa fiintu ka ooyeysaa iyo roobka waa marka wax dee ay luuqmarow iyo intay aragto dee jeejeesiyo nolol dee mayni soo kala dhiman ay wax aragto ayay waxay colhor cigaal shidaado colhor tiijabay ma maqashay guurkaba intaan la gaadhin baa lasii jabaya yaa dabadeetana waxaa dhacaysaba in qoyskii halkaa dee burbur uu yimaado cigaal shidaadow colhor tiijabay waxaan ka yara daba tegi doonaa walaalkay Idris hadalkiisii laba hadal buu inankaasi ka dhawaajiyo wuxuu yidhi hanaanta beenoo lagu xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaa mid kalena uu yidhi wuxuu yidhi nabigeena cali salaam wuxuu yidhi haddii aan faqri ka cabanno han guursanno goormuu ku yidhi guursa nebigu waa marka labadan xaasaad kafayn karayso laakiin ma aha adigoo tan kaa dayacan inaad tii kala tiraahdo waan kafayn karaya taasi waa qalad marka la leeyahay been baa inanta lagu soo xirigeliya inantii iyadana waan ataagaya waxaan ku ataagaya inankii waqti baad siisay waad u hurtay waqti baad gelisoo waad la sheekaysanaysaa waybaad ogaan lahayd guntiisa marka hore aan la iswareysanahayn oon la iska wareysanahayn mustaqbalka u dambeeya hadhu tole inuu hadaf socotaane aynu ku soo noqono mawduuca marka markan sheeka wadaagga aad tihiin aad doonaysaan nolol inaad dhistaan idigu laftiinu miyaydaan qayb ka ahayn inaad nolol been aad dhistaan maya been anagu ma aha hadafkaygu inaan dhisno laftaadu maanad waxoogaa been u sheeg maya runta inaan kula dhaqmo weyn isaguna runta ay sheegay weyn aan wareystaan ku idhaahdo maxaad qabatay muumin baan ii kaay goorahanba muumin aad baad mataqaanaa u dhuganaysay doodaha dhallinyarada dhinaca muxuu ahaa furniinka iyo guurka maxaa kaaga baxay bal yara miisaan waay horta laba shay unbaa ay dhaliishu yar badan tahay dhinaca dumarka markayn eegno waxaad moodaa rag waxay ku yar dhaliilayaan xaggii dhaqaale burburka markaa dhaqaale burburkaas inaynu xal u helno iyadu waa laga maarmaan tusaale yaro koobanna waan ku siinayayo waxaan garanayaa in odayo magaalada hargeysa ka shaqaysan jiray mushaar fiican buu iska qaadan jiro ilaa 1 ilaa 2 kun inta u dhaxaysa haddana waxa ku adkaatay inuu ninkaasi uu guursado sababta ugu weyn waxay ahayd xidhiidh uu lahaa ayaa dhaqaale burbur badan ku keeni jiray isagoo gabadha markaa lacag badan ku bixin jiray oo xidhiidhka la lahaa marka waxa ku adkaatay inuu mehersadaba hadduu si fiican u fikiro oo 2 bilood ama 3 bilood ayaa laga yaabaa mushaarkiisu inuu ka badan yahay oo ku mehersan karo gabadha lafteedu kuma xisaabtama sadee lacagtan uu ku siinaya waa lacagta adigu mustaqbalka ugu samayn lahaa ee dee aad ku wada noolaan lahaydeen ee dee wax dhigo ama dee mataqaanaa la tali
laakiin iyadna waxay isaga qanacsantahay inay intaa yar iyo waxaa yar dhaqaale burburka markaa dhaqaale burburkiina dee noloshii buu burburinaya markaa burburiyey markaa ma isagii dirayay mise iyadii qaadanaysay maya eg dumarku dhaqaalaha dumarku inay dhaqaalaha xanaanayaan waa qodob muhiima marka horta dumarka taasaan kula talin lahaa raggana dee waxaad ila moodaa professor ayaanay raggii lacagta ka qaadin ee u kaadiyay oo wixii dhigta kolley qofkan aad mustaqbalka damacsan tihiin dee waxa weeyaan imagine qofka mushahar fiican qaata ee mushaharkiisina haddana ku dhammaanaya waxaan noloshii realitiga ahayn waxyaabo badan laga tanaasuli karaa jira inay gabadha aroos tagto inay makeup marsato waxyaabahan waa nolosha waxyaabo iska dheeraada muhiim maaha nolosha waxaa ka muhiimsan noloshii saxda ahayd baa ka muhiimsan marka gabadhu inay dee ay dhaqaala burburkan iyo waxyaabaan ay aamintay inay nolosheeda burbur ku keenayso horta waa qodob iyadu aada u muhiima dumarka horta taasaan kula talin lahaa arrinta dhaqaala burburka inay runaantii xal ka keenaan oo nolosha ay xamilaan inamadana dee waxaad moodaa raggana iyadana waxaa lagu yar dhaliilaya dee eegitaankoodii iyo damacoodii inuu farabatay tusaale yaroo koobanoo dee nin baa beri waxa laga hayay arooskiisii isagoo joogo waxaa arkay gabadhii aroosada ahayd qaar kaloo ka qurux badanba haddaba arooskiisi laftiisii buu joogaa dabeetana hareeruu saa eego markaasuu yihi waniyo malaan yara degdegay waxaan anigu ku celinayaa halkii inantu iga soo abaartay ya waxaan siday u fahantay umaan wadin anigu maan lahayn hooyadaa dee dhaqan xunbay ku soo bartay ama saasay u waday laakiin waxaan leeyahay dhaqankii ay iyadu kusoo dhaqantay adigu ma haysid wadadii keligeed maaha waa rag iyo dumar dhallinyarada dambe oo dhami teeda kale way sii kala duwan yihiinoo dhallinyarada miyiga iyo kuwa magaalada way sii kala duwan yihiin kuwa miyiga way hayaan dhaqankii oo iyagu kuwan maxaa dhaqanka ka kaxeeyey waxaa ka kaxeeyey telecommunicationka iyo waxaan ismiidiyahan iyo magaranaysa social media ya laakiin kuwa miyiga way hayaan marka waxaad leedahay dhallinyaradii miyiga tagoo magaalada iskaga tag teeda kale inta badan ninka raggii wax walba ha sameeyo gabadhiisa inta badan wuu dulqaataa jacaylkana daacad bay raggu inta ugu badan ka yihiin marka la soo eego sidii abwaanadu hore u sheegan oo dhan ragga daacada dumarkiiba dumarku inta badan iyagaa waa cadfurka sameeya ma garanaysaa waayahay cabdiqani baa goorahan bataagay dhowr jeer baad hadasheen cabdiqani horta waxaan leeyahay oo marka hore horta nolosha khiyaaliga in laga baxuunba horta guurka ku waaraya qofkuna qofka doorto qof kastaana mas-uuliyaddiisa garto dumarkana hal mid ma odhanayaayo waxaan leeyahay horta bisad ha noqonina bisadu waxaa la idhahdaa kalluunka ay aad bay u jeceshahay haddana inay biyaha gasho way nacab tahay bisadu raaxada aad bay u jeceshahay oo meel dugsoon oo furaash inay seexato aad bay u jeceshahay haddana iyadu guri may tabcanin tacabna ma taqaano markaa waxaan leeyahay jiritaanku suu waaro dumarkuma bisadiya noqon in qof kastaana mas-uuliyaddiisa garto dumarka waad maqlaysaan oo waxaa lidi leeyahay bisad baad noqoteen waad ka jawaabaysaan baan filay waa hagaag waad ku imanaya munafaysal waa dhowr jeer makeupka iyo dhaqaalaha ku yordhigtaan hal yara yidhaahdo haddii makeupka saa usii jeceshiin sidaa dee qolooyinka aan ka keenna qurbaha dee bar toobaalkii ismariyo 10 layarna ismarina iska ka yaryare waa mid waa talabaad dee quruxdu keliya ta makeup maahe socod iyo dhaweeyahan iyo waxaan yaraystoo socdo meeshii gaadhi taas ma orlaa ma sidoo inaan baa tahay dhallinyaradii cuslaatina waa tahay dumar baad la heestaa ka waran adiga hinaa saas ma ku soo maray weligay ma soo maray بأنه كل شيء ما أعرف الحمد لله رب العالمين. أصبح لي عروض بالله والحمد لله رب العالمين. لكن الفنان واحد شراء. مركا حاسك واتيكو هذا الشيء. واتيكو هذا أذكرستان. شنو صدق سنة قبلها. مركا وحنا صاهي وواحد مركا كله يحبه متره. طبعا تدمر كويس كتير لكن هذيك كو حرنتها وفي بنادم كو حرنتها. وحويا يعني نلشوا وقفك نينكا كنترول كاي. هذا أدو كواشو قفته مسكين هذا كواشو. تبغى جوجل ولا ما دويمن. لكن هذا كالسوري هذا قفته هذا سو كالسون تاي. تقف بنادم كو كلنا نلو كو أركيا. مهما هو ما نيساد نفنانا تاي ويكو أركيسا. meelahan gabdhaha kugu dhegdhegayo ku dhunkan eeftid laakiin wixii masraxa inaan dhaafin qofku arkaa wixii masraxa dhaafsiisan haday noqoto waa mashaakil ha marka ma la qabtaa hablahan dhalinyarada ah in ay wiilashu ka waaleen saad sheegtay of course horta iyagu waa iska waaleen labada qolob waa iska waaleen qolana ma waxa weeyaan qolana bari ma bahalkan aan kuu sheegay telefoonka la yiraahdo ayaa la iskaga waalay berigii hore tisde waaniga dii sheegay de waxaan meenaa lahayn inagu imika odayga islaanta halka fadhiya la shaqaansanaya miyaan saa ogey labadii laanka isugu jiraan macalinku halku iska fadhiyay kii dhalay tii dhalay halkan ay fadhiyaan meesha wax ka socdo meesha og xaafada cid ula hadlaysa ma jirtay dhibaatada marka waxa ninkan odaygana siyaasadii iyo TV-ga uu mashquul ku yahay
iyo siilaaya qabsaday iyo cira qabsaday buu isagu mashquul ku yahay xaajigu xaajadiina iyaduna duruucdii ugu dambeysay mashquul ku tahay filimkaasi ku jirtaa macallimadan kale hawlaheeda kale ku jirtaa iyada iyo saaxiibka waay gabagabadii baan maraynaa calaykum asalaam bal abwaanka u dhig horti duco ilaahay qoysaska inoo wanaajiyo waxa weeyaan xagga maaragtay maxkamadaha ya oo waxaan kuri iyo culimada joogta na waxaynu kuwaaninaynaa inay dadka aanay hore u kala furin ay isku celiyaan cadho badan baa jirtay xagga dhallinyarada wiilasha ah waxaan iyagana ku waaninayaa in ay u samraan oo inantu markay ku kacdo ee ay hinaasto haddii ay samraan oy dejiyaan kolba oo ay dhulka u dhigaan way ka dhammaanayaan hinaasahan iyo waxaan inay ka dhammeeyaan inanta hinaasaha oo aanay ku degdegin hablahana waxaan ku waaninayaa ninkoodu waa jannadoodii inaanay jannada iskaga ciyaarin xagga guurkuna wuu iman karaayo waxay amaal tidhi markay qofku weynaato in lala guursado aan in lagu soo dedejin soo dee dumar kale oo kula midana waxay qabaanba ninku inta yar uu cadaalad fali karayo abwaane su-aal baan ku weydiin intaad ka bixin iminka asmi waxay noo sheegtay siaad maqlaysayba in iyadu ay isku dayday inay ninkeedii moobilka ka dhigto oo ay mataqaanaa ay dee xaaladeeda ay wada dejiyaan laakiin markuu isagu dayn waayey dib ay u qaadatay haddana aanay kuba kalsooninba hadda isagoo la joogaba inaanu jeclaynba maxaa keenaya ha moobilka isticmaalka moobilka weeyaan waay isticmaalka moobilku basar loo isticmaaluu leeyahy waay ma fahantay haddii ninku soo dhaafo basarkii iyo hadday gabadhu dhaaftaba qas iyo dhibaato wuu keenayaa waay moobilka inta nadiifta ee hagaagsan ha loo haysto oo macluumaadka wanaagsanaa la kala qaato yaanan la iska qishin de qishka diintu ma ogole laakiin labada moobil yaana isku furnaan baad leedahay waay moobilku yaana isku furnaan muumin usoo dhiib gabagabadii baan maraynaa si aynu bismillah anuu talada ugu dambeysa waxaan sii lahaa uun guud ahaanba rag iyo haweenba dhammaanteen bulsho ahaanba waxaa waxyaabahan ka qayba isku dayashada fara badan oo waxaad moodaa dadku noloshoodii inay isku dayanayaan oo waxa ka qayba qofku wuxuu soo duubayaa gurigiisiibuu kamarad ka duubayaa cashaduu cunayuu kamarad ka duubayaa noloshuu cunayuu kamarad ka duubayaa taas waxay keenaysaa ilna way keenaysaa de qofkii waxaan daawadaa inuu ilna way ku dhacaysaa runaantii waxayna keenaysaa inuu qofku noloshiisii qawado oo uu noloshiisiiba dee ku qanci waayo markuu waxaasoo kala duwan iyo waxaasoo kala jaada uu daawado laakiin waxay u baahan tahay noloshu geesinimo iyo inaynu wajahna u baahan tahay waxa weeye qofna ma aqaano gurigaad ka soo toostay dee inteena midba meel buu ka soo toosay marka waxaan qofku isagunba perception iyo wax uu aaminsan yahu isagu isugu sheekeeya weeyaane qofku noloshiisa xorkaabuu ku noolaan karaa hadduu ilaahay siiye maqsib buu ku noolaan karaa hadduu ilaahay siiye 10 dabaq buu ku noolaan karaa cid kula yaabasa iyo cid qadarinaysa iyo cid uu gaar u yeelanayo markuu halkan soo fadhiista la odhanayo waa kii dabqa ka soo kacay ma jirto marka guud ahaan nolosha aynu wajahno haddaynu noloshana aynu wajahnana isfahanka guurka iyo runaantii waxyaabahan way imanayaan baan weydiinaya wiilashu waxay yidhahdeen bisirninkaarnimadii inkiraadda joojiyay idinku maxaad leedihin annaguna waxaan leenahay gacan adayg iyo shabeel raacnimada iska daayay shabeel naagoodnimada mid baan ninka ilaaway horta anu malaha imka raaliyaani baan isleeyahay sababtoo ah anigu qofan xadhiidh imka la leeyahay qofkaasna aad iyo aad baan u jecelahay hadduna qalbigayga been ii sheegaynin anigoo qofkaa la sheekaysta oonan weli nolol wadaagin aad iyo aad baan qofkaa ugu kalsoonahay sababtay kalsoonideena waxaa keenay qofku isaga kalsooniday siiyey haddii aan isaga midmadow ka arki lahaa kalsooni kumaan qabi lahayn ma fahanteen markaa isagan kalsooni ku qaba anigu sababtan kalsoonida ugu qabaana waxay tahay sababtan kalsoonida ugu qabaana waxay tahay waan isdareemay inaan kalsooni ku qabo waxaan isku dareemay wixii igu dhahda waxaa iska daawo waa kooxiina waan iska daayaa waxaan ku dhahdo miyaanad saasoo kale ku ahayn may waan ku ahaa laakiin say qof kastaba qofku isagu wuxuu kaa samaysto baad kula dhaqmaysaa ayaan aaminsanahay kii hore igama samaysan baan isleeyahay laakiin kan imka wuu iga samaystay waayo anigu waxaan ku dhahda iska daa wuu iska daynaya laakiin anigu wuxuu igu dhahda iska daa waan iska daynaya raaliyanimada iyo wanaagga iyo in laysku baari ahaadana labada qofay ka dhaxaysaa
taadaas aan ku noqdane qofka haddii muxuaha abwaanka kelmadiisaan ka daba tegaya haddii ninkayga aniga qaba aan ka shakiyo moobilkiisan dabageliya maha shaqadiisan xataa dabageliya waa ma waalanayaaba haddaan dabageli waaye waaye muuna xagga saraan in yar ku celinaya mikrofoonka aan jecel mar dambe xaggaasi geyn haye bisadaatiino daraxada waa jeceshin waxbana ma tabcataa waaye hadalka saas waa caadi sama anu awood waan u leeyahay inaan tabcado maanta si adaan diidanahay inaan ku dareensiiyo inaad baahideeda aad ka fayn karin adaan diidaya inaan ku dareensiiyo inaad baahideeda ka fayn karin awood waan u leeyahay inaan shaqaysto talabaadee waxaan aaminsanahay anigu waad mahadsan tahay da u daaya hadalka u daa haye maxaad aaminsantay u daaya waxaan aaminsanahay anigu ismaqalka in lagu wada joogaya ismaqalka in lagu wada joogaya hadalku haddii hooyadii oo geeriyeysan oo naxashkii saaran uu zawjkayga igu idhaahdo halkaa kama bixi kartid hadday ka surowdo weyn halkaa kama bixi kartid hadalkiisu waa inaan maqlo oonan ka bixi karin ka soo tag hadal walba oo dunida yaalla waajibka koobaad waa odaygaaga ismaqalku waa kaa markuu kaarkood u dibacsan rumarka laysku sheegay kaama fogaanayo adoo u naxariisanay tan kale markii aan ilmo dhalo hablaha le markaan ilmo dhale shuluqa aan noqdo dee ama aan isku dhex dhaco sidee iskugu dhex dhacda waabad ogtahay haddaad isku dhex dhacda naa kala raadsanayay sidee ishagaashiis qabo dee umushuna shaahi caanaa iska ilaaliso waa shaahi caanaa adiguna aad baad mahadsantahay haye ta samirkan ka hadlaya haddaad si kasta u samirtid ood ilaashatid ood wax walba adigu ka soo tagtid isagii baan maxaa la yidhahdaa kaa keensanaya samir weydo samirkiiyo wax walba aad waa samaysid isaga kaa keensanaya markaad aragtid wixii aad samirtay wixii oo dhan isagu inuu hawlihiis iska wato adiguna qasbiyan hawlahaaga waad bilaabaysaa marka taas ayaa keenaysa hal mar aan kuu sheego u jawaab qofkan oo dunida qofkan aad dunida ugu jeceshahay qofkan aad dunida ugu jeceshahay eed u samrayso eed intaasoo dhan dadaal ku samaynayso ilaahay muun awoodan hal mar inuu qalbigiisa kuu soo jeediyo laakiin hadda lagugu imtixaamaya weligana samirkaaga lagu eegaya maxaad ka leedahay iida maxaad ka leedahay hadalkeena ii aamusa maxaan samirkii ku gaadhaa imaka intaanan samirkiiba gaadhin waxaa imanaya khilaaf markuu yimaado isagii lugtay ma dhigayo waxay noqonaysaa warqadeeda si waan ku siini arsaco waxaad qaban karaysaan ha ilaawin ubad inuu dhexdiina yaalo ma ninkaa kuu cad ubad inuu dhexdiina yaalo ha ilaawin xitaa haddaad isaga ixtiraam weyd ubadkiina ixtiraama imika khilaafka badanka dhex taagan waxaa weeye hooyadii aabihii khilaafka ilmahooga iyagu dhex taagan ba iskhilaafaya oo islaynaya udhiib isagii wuxuu oranayaa ubad kale waad heli gabadh kale waad heli tan way buuq badan taa ku dhaafto tan kale uu doonanaya buuq iyo qaylo ma laha iyadu iida halka ayaan doonaya inay isgaaraan halka labadooda inay gaaraan baan doonaya hay inaad gabadhaada hore hagaajisid oo dejisid oo wuxuu ku samaysid waa hagaag halka gaaray iisoo yarjeeso halka ugu dambeeyana gaaraya insha Allah ninka yaa marka hore ku keenay Allah subhanahu wa ta'ala soo maaha Allah subhanahu wa ta'ala ba gurigaaga soo galay soo maaha ilaahay dartii baad u guursatay ninkaa sax iyo jacayl dareen aad u qabto ilaahay dartii inuu sabir sax waa hagaag halku waa ka abwaane jaysada samirka ilaahay baa bixiya ee ninka laga sugi maayo in allaha maca saabiriin inantaas maxay nagu tiri maree jigjigaane maree magacaaga igu celi maree jigjigaatay mikrofoonka u dhiib muna muuna u dhiib oo hablaha jigjigi mooda sidaadana jigjigo dhan hablaheeda waan hambalyeynayna caawo waayahay muna maxaadna odhanaysaa ugu dambay adigu haye adigu maxaad odhanaysaa hal mid baan anigu wataa waaye horta dumarka been baa lagu soo xirigeliyaa run baa lagu dhawqaa ayaa la yara qalad fahmay iminka waxaa jira maanta hadduu nin ii sheegto ina oomaar baa i dhalay ama ninka oomaar leh baa i dhalay markiiba waan soo helaya amaba aabbahay dahabshiil buu sheer ku leeyahay laakiinse beentan dumarka lagu soo xirigelinaya waa dabeecado idigu midaan been u sheegin anigu iska yar tahay dumarku iska qalbi jilicsay runta marka la sheego marka matiina ka yar may taayadu way ka yar tahay waxaa jirta dhaqan ah inay rag dumarka la guursadaan taamiddaa soo koobaysaa waxa soo koobaysaa taamiddaa soo koobaysaa inuu ninkaygu gabadh kale ila guursado ninka waa jeebkiisun baa lala socdaa inkamka soo gelaya aniguba dee dakhligiisa qayb baan ka aho
xaaskiisii baan ahay $1 hadduu soo galo waa laga siibaa un si aanu gabadh kale u guursan markaa kaale ma waxaad doonaysaa ma waxaad doonaysaa haddii inaanay ninkani waxba u kordhinba inaan waxba u kordhin baan doonayaa anigu kaasheerkiisii baan ahay lacagta isticmaali maayo soo maaha aniga ninkayga waxba ma kala lihin marka waan u haynayaa waxaan diidanahayun ninkaaga mar kasta oo uu jeebkiisa waxo kordhaan waa mar kasta oo uu damco inuu gabadh kale kula guursan markaa lacagtii soo gasho baad ka burburinaysaa lacagta soo gasho waan siibayaa unaan waa hagaag aad baad umahadsantay amaal baynu ku dhiibaynaa amaal cilmi gabagabadii baynu maraynaa maxaa xala maxaa dhalinyarada kula talinaya suuga walaal bismillaahi raxmaan raxiim marka hore inantaas jigjiga waan hambalyaynayaa jigjigo oo dhanna sumcad baad soo hoysay samirku waa tiirarka lagu guulaysto samirku waa tiirarka ay qoysasku ku soo hirgalaan waxaan ku yiri nafteena akhriya adduunba u wanaagsan anugu imika waxaan tala siin lahaa dhalinyaradu inay isu samraan in dhibaatooyinka indhaha laga qarsado in dabagalka faraha badan leh iyo dhaliilaha raadinta raacdooyinka iyo dhaliilaha la isdul taagaya boogaha indhaha laga qarsado in ilaahay dhalinyaradeenna social mediahan iyo dhaqan xumadan iyo faambaroojyadan iyo khiyaamooyinkan ay daawanayaan in ilaahay indhahooda ka qariyo inaynu u guurno qarnigii wanaagsanaa ee waxaan ku hooyooyinkii aabbayaasha aan ka tafsiiranahay anigu ay noqoto ayaan kula talinayaa intaas waxay noogu dhan barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo aynu toddobaadkan ku falanqaynaynay amba aynu kula fagurnay guurkii hore wuxuu ku guulaystay iyo guurkan dambe dhalinyarada imika siyaabaha uu ku guuldaraystay waxaan filayaa inaad doodaasi aada uga wada bogateen idina xiise gelin doonto waxyaalo badanna idinka bixi doonaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuure maxamed nuur iyo weliba cabdirashiid cabdiwahaab waxaana barnaamijkeenan fududeysay shirkadda dahabshiil group dhammaantiin nabadgelyo dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed